ku bilaabi doono dulucdii kitaabkeena xisnul muslimka la odhanayay labadii cashar ee ka horeeyay kitaab casharkeenan waxaynu kaga hadalnay arartii iyo gogoldhigii kitaabka oo ka hadlaysay fadliga iyo wanaaga uu qofka bini aadmigii helayo marka uu ilaahay xuskiisa badiyo si yaroo kooban buu kitaabku uga hadlay maadaama kitaab yaroo kooban uu yahay dikriga ilaahayna fadligiisa wax la koobi kara maahan casharkeena saddexaad wuxuu ka bilaabmi doonaa marka ruuxu ka tooso hurdada ama cibaadaha u tooso salaatuleyla ama shaqadiisii adduunyada waxa u tooso ee ilaahay naftii mar labaad ku soo celiyo ee uu ishubiyo inuu nool yahay ayaa dabadeedna ducooyinkan uu akhrisanaya ducooyinkanna waxaa la yidhaahdaa adkaaru listiqaadi min annowm adkaarta la akhristo marka laga soo baraarugo min annowmi hurdada alistiqaad waa baraaruga iyo marka hurdada laga tooso ayaa istiqaad la yidhaa adkaarta la akhristo marka hurdada laga soo tooso waxaad ku bilaabaysaa markaad hurdada ka soo toosto ee aad ruuxdaada iyo jasadkaaga iyo noloshaada miftaax uga dhigaysaa oo aad ku afurinaysaa naftaada ducooyinkan soo socda ee nebigu akhrisan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaad odhanaysaa alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi الnushuur alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi الnushuur mahad alla iskale dhammaanteed alladii allihii axyaanaana nooleeyey bacda maa amaatana intii uuna dilay dabadeed ogow oo hurdadu waa nooc ka mida geerida laakiin fudud mowtatu suqra ayaa la yidhaahdaa geerida fudud ayaa la yidhaahdaa ama sahlan iyo geerida weyn oo aan talla soo noqonayn ah marka aad seexato xubnahaaga qaybo badan baa nolosha yacni joojinaya xarakaadkii mar labaad baa ilaahay haddana dib kuu soo noolaynaya noloshaa aad bilowday inaad ilaahay ugu mahadnoqdo ayaa lagaa rabaa alladii allihii axyaanaana nooleeyey bacdamaa amaatanaa intii uuna dilay bimacnaa uuna seexiyey wa ilayhi ilaahay xaggiisa unba annushuuru isa soo celinta dambana ilaahay xaggiisa ayay ahaanaysaa oo laga wado maalinka qiyaamaha iyo dadka bini aadmiga marka dib loo soo noolaynayana awoodda isa soo celinta ilaahay keliya ayay u sugnaatay ducada labaadeed akhrisanaysaa markaad hurdada ka soo toosto waatan waxaad odhanaysaa laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir subxaana allah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي دعاء ساد أقرسانيسا دعاء أياد أقرسانيسا مركات هرددا كسو توستو معنيه دنيهي لا إله إلا حق لقو عابده مجر إلا الله إلهي موياني وحده كليدي لا شريك cid ilaahnimo kula wadaagtaa ma jirto lahu isaga lahu lmulku lahaansho dhammaantii ilaahay buu u nisbooba lahaanshaha ilaahay keliya iskale walahu lxamdu mahad dhammaanteedna ilaahay bay u sugnaatay wa huwa ilaahay calaa kulli shayin qadiir shay kastaba ilaahay kii awood ula weeyaan subxaana allah ilaahay baa ceeb oo dhan ka hufan walxamdu lilaah mahad dhammaanteedna ilaahay baa iska leh walaa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane wallaahu akbar ilaahay baa weyn walaa xawla xeeladi ma sugnaanin walaa quwata awoodina nooma sugnaanin ilaa billaahi alcaliyi alcadiim ilaahay allaha sarreeye ee weyn ilaahaasaa noo sugnaaday annagu awood iyo xeelad noo gaarihi ma jirto rabbi ikfir lii ilaahayow isaamaxoo ii dembi dhaaf waa ducada labaad ducada saddexaad markaad hurdada ka soo toosto waxaad odhanaysaa alxamdu lilaah mahad alla iskale alladii allihii caafaanii i cafiyey fii jasadi allaha jidhkayga ii badbaadiyey ayaa mahadle alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadi wa radda calaya ruuxii wa adina lii bidikrihi وأذن لي بذكره انت أساد أرانيسا الحمد مهد لله الله يصبناتي دمانتي الذي عليه عافاني في جسدي إله شركي إلاليي بدبادي
ورد علي روح دينا الله إيسو عليي وأذن لي إله إي أقلاضي بذكره إن أنحصه إن بدن أو أدوم إلهي أو أن رب حسوسا بابدا نعمة إن إلهي أو كوافتيو إن إلهي حسده ونعمة من الله تبارك وتعالى.